waxaa maanta magaalada Birmingham ku shiray jaaliyada magaalada Birmingham ee ka socota gobolada loo yaqaano SSC Sool Sanaag iyo Cayn waxay ka shirayeen runtii markaanu weydiinay inay ka tashadaan arrimahooda guud ahaan ee iyaga ku saabsan waxay dadka ka muuqatay shucuur aad iyo aad u weyn oo ay ku muujinayeen inay raacsan yihiin waxa gudaha ka dhaca ama go'aanada gudaha lagu qaato iyo halkanba dadku inay isku xiran yihiin dadkii ka soo qayb galay hadaladoodii waxa ka mid ahaa marka su'aasha koowaad oo weydiisay marka hore bal dadkan waxay isugu yimaadeen inay danahooda ka tashadaan intooda qurbaha joogta iyo wixii ay wax kaga caawin karaan dalkoodii marka dib loogu noqdo gaar ahaan iyo guud ahaanba wixii iyaga markaas ay ka geysan karaan inay fakarkooda ama naftooda ama maalkooda ay wax kaga caawin karaan marka waa wada tashi guud shirkani oo danka hadala way inaanu saxsanayno waxa farxadii ah in aad isku codka wada noqoteen waxa loo baahan yahay inuu qumanaasaasaan ku garanayaa marka rayali markaan xaqiiqada u noqdo intii dambe waanu dhaliilay waa annaga qudhadayada aad isu dhaliilay wax aan maanta ku sababaynayaana ma jirto midda la yaab kale waxa weey dad la iska xidhxidho oo waxa la waxay ku xiran yihiin iyo sabab loo qabtay aan la garanayn hal la qabto oo hal la xidho laakiin si hadduu qofku dambiile yahay in dambigiisa lagu cadeeyo waa loo baahan yahay haddii uu dabeedna wixii uu mutaysto la mariyo laakiin se dad la iska xidhayo waliba intii laga kaxeeyo haddana meesha ay xaq u lahaayeen iyadaan laga waayin cid xukunta aan dhibaato kale lagu hayn aan cid wax loo cabsi oo laga qabaa aanay jirin cid xukunta oo aqoon diimeed ku xukunta la waayin ama mid maado ku xukunta la waayin haddana in loo dhigo meel kale oo iyadoo aynu ognahay maanta Soomaaliya jeelasheeda in aan de wax qofka ehelkiisu taro mooyaan oo gurigiisa shaaha iyo caanaha looga keeno mooyaane aanay jirin wax nolol oo kale oo ka dhaxeeyo oo ay awood ay u leedahay ciidamada asluubta iyo dawladda ay leedahay lagu bixiyaa aanay jirin in haddana lagu sii kaxeeyo lagu sii fogeeyo taasina waa wax la yaab leh oo aan la qaadan karin weey erkab maanta aanu isugu nimi soo su'aalin sax waxaanu isugu nimi inaanu noloshayada iyo aayahayaga ka talino dalkayaga u talino dadkayaga u talino wax u qabanno wixii dhibaato ah jira ee dalkay dibadda iyo gudaha labadaba ka jira inaanu ka tashano wax u qabanno waliba waxyaalo fara badan baa noo qoran oo odayaashu soo qoreen waxaanu ku rajo weynahay khaladna waa sameeyay waa salaamay qoladii TV-ga oo noo keentay soo koob dhacay marka anagu halkan waxaan maanta isugu nimaan danaha ka wada hadallo damaana arrintiina waa noo dhamaatay gudoomiyihii Birmingham jaaliyada Sool iyo Cayn ama jaaliyada SSC loo yaqaan ayaa ka hadlay wuxuu kaga hadlay inaanu ma taqaanaayay aanu shaqadii aanu noo socotay ahayd beesha inaan lagu daadihiyo inay dib u dhacday horta waxaan ugu hambaleynayaa gudoomiyaha inuu qiray dib u dhac ku dhacay shaqadii ay hayeen baan horta ugu hambaleynayaa gudoomiyaha marka hore iyo gudigiisii la shaqeynayba arrinta geesinimada leh ah inay qirteen wixii dhacay inta kadib waxaan islaaf garanay dhamaanta iyo dadkayga shirka ka soo qayb galay in hawshii si wanaagsan loo daadihiyo gudiguna uu noqdo gudi dhaxalgala waan waxba laga bedelin laakiin wax lagu kordhiyo hadii ilaahay ka dhigo shirkan maanta waxaan u arkaa runtii shir aad iyo aad u muhiim ah maadaama aan sugan mijaaliyada SSC aanu kaga tashanayna ayahayaga haddii aan kaaga hormato gudaha waanu raacsanahay mar walba waanu taageeraynaa shirka odayaasha iyo garaadada iyo khusuusiga intaba waanu taageeraynaa waanu garab taaganahay mana aanu ogolin in la kala jiito oo qofna midigtana qabto qofna bidixna qabto ku garab taaganahay waxaanu leenahay ha noolaato ha israacdo ha wada jirto ha wada tashato ayahayagana waanu ka tashanaa insha Allah bismillaahi kariim waxaanu rajaynaynaa inaanu sida yadii iyo si ka si fiican sii noqono oo aanu muuqano dalkayaga iyo dadkayaguba insha Allah bismillaahi kariim ayaan cadowga u sheegayaa in aanu tashanay kana midaysanahay midnimada muqaddaska ah SSC
marka ragga iyaga xidhan ee meesha lagu maxkamadeynayana waxaanu ka xidhanahay weer inaanu ka wada tashanaa ayaha iyaga cid noo talinaysaana ma jirto cidna maamulaysaana ma jirto annaga ismaamulayna annaga isxukumayna annagaana isweheshanayno iska haysanayna walaalaanu nahay inana kala jiita ma aha qoloba inay meel laga soo baxdo oo laba gacmood aanu maxaan dhahnaa ku kala jirno ma aha Yusuf Ahmed Mahdi, ETN TV, Birmingham.